kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkiinnii dood wadaag oo aad uga barateen inuu idinkaga yimaado telefishinka universal toddobaad waliba barnaamijkan oo soo socday muddo 10 iyo dhowr sannadood ah ayaa waxaa loo hakiyey geeridii ku timiday soo gudbiyihii weynaa cawil daahir salaad naxariistii janno allah siiyo haddaba barnaamijka oo sida aad uga barateen badiirada ku saara waxyaabaha markaa taagan ee bulshadu ay aad u danaynayso ayaa waxaa hadda go'aansanay in uu noqdo barnaamijka qayb caawa looga hadlayo inuu noqdo arrimaha amniga haddaba si loo falanqeeyo arrintaa waxaa nagala soo qayb galay xildhibaano iyo wasiiro isku jira oo uu ugu horeeyo wasiirka cabdulaahi goodax barre oo ah wasiirka waxbarashada horena u soo ahay wasiirka qorsheynta iyo wasiirka arrimaha gudaha xildhibaanna ah sidaas oo kale doctor cilmi maxamed nuur oo asaguna xildhibaan ah kana tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka waxaa kaloo nagala qaybgalaya asaguna cabdiraxmaan kulmiye xirsi oo asaguna ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada sidaas oo kale asna xildhibaan ah iyo cabdixakiim macalin axmed maalin oo asaguna xildhibaan ah kana tirsan guddiga maaliyadda waxaa kaloo ayagu nagala qaybgalaya waxgarad fara badan oo uu ka mid yahay wasiir ka tirsan hirshabeelle wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda aana xildhibaan hirshabeelle ka tirsan mudane khaliif muumin tooxow arda jaamacadeed iyo akhyaar kale oo fara badan haddaba intaana barnaamijka u gudagelin waxa aan fiirsanaynaa oo aad ku soo dhowaataan warbixin kooban amnigu waa furaha nolosha haddii aanu amni jirin nolol wanaagsan oo tayo leh ma jirto waayo amniga waxa uu saamaynayaa qayb kasta oo nolosha ka mida qof walba oo caasimadda ku nool marka aroorta uu soo tooso waxa ugu horreeya ee uu ka walwalayo waa ammaankiisa waxa uu u baahan yahay inta aanu deegaankiisa ka dhaqaaqin bal inuu ogaado xaaladda ammaanka halka ay saaka marayso xalay maxaa dhacay saaka xaggee furan xaggeese xidhan jidkee la mari karaa jidkeese aan la mari karin magaalada muqdisho waxay ka mid tahay goobaha amni xumida muddada dheer la soo daaladhacayay oo bulshada ay aad iyo aad ugu ooman tahay bal in ay maalin un aragto ammaanka oo soo hagaagay maamuladii kala dambeeyey waxa ay kala dhaxleen nabad la'aan guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda ha yeeshee bulshada soomaaliyeed waxa ay mar walbaaba ayadadiilo ka qabtay in maamul walba oo yimaado uu noqon doono kan soo afjari doona nabad la'aanta gaamurta ee ka jirta muqdisho iyada oo amniga si guud ah uu culayskaasi uga jiro haddana si gaara toddobaadyadii lasoo dhaafay ammaanka caasimadda waxa uu ahaa mid si weyn bulshada ay aad uga walwalsanayd culayskaasi waxa uu ka soo muuqday gudaha baarlamanka kadib markii dhowr maalmood oo isxigxigay ay adkaatay in la furo doodda baarlamanka dood dheer kadib waxaa laga fursan waayey in ammaanka uu noqdo ajandaha ugu horreeya ee looga doodayo baarlamanka ha yeeshee waxaa haddana laysku afgaran waayey in doodda amniga ay noqoto mid u furan warbaahinta iyo dadweynaha iyo in si qarsoodi looga doodo waxaana ay dooddii ku soo gebagabowday in cod loo do sida ay noqonayso codkiina waxaa ku guulaystay qoladii ku doodaysay in doodda ay qarsoodi ahaato taana waxaa ka dhashay in warbaahinta dibadda loo saaro durbadiiba arrinkaasi waxaa ka biyo diiday xubnihii xildhibaanada ee laga codbadiyey oo ku doodayey in bulshada soomaaliyeed ay xaq u leedahay inay ogaato xaaladda ammaanka halka ay marayso guddoonka baarlamaanka waxa uu amar ku bixiyey in warbaahinta dibadda loo saaro buuq xooggan ayaa ka dhashay arrinkaasi oo markii dambe gaaray in lagu kala tago xildhibaanada qaar oo labada dhinac ka tirsan ayaa warbaahinta si kulul isugu cambaareeyey iyada oo warfidiyeenka laysku mariyey eedeymo aad u culculus haddaba maxaa ammaanka dalka ilaa iyo in muddadaasi aadka u dheer uu u noqday cudur aan daawo lahayn maxaa qaldan majaangooyada siyaasadda ammaanka ayaa qaldan maxeeladaha fulinta loo maro ayaa qaldan ma aqoonta iyo waayo aragnimada ayaa dhammaystirnayn ma iskaashiga iyo wada shaqaynta ayaa wax ka qaldan yihiin waxayse tahay kaalinta ciidamada shisheeye ee dalka jooga mas-uuliyad intee la-eg ayay ku leeyihiin amniga dalka su'aalahaasi iyo kuwa kale waa falanqaynta barnaamijka doodwadaag ee caawa ku soo dhowaada mar kale barnaamijka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa martida sharafta badan ee nagala soo qayb gashay iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed haddii su'aalihii ugu dambeeyay aan ku bilowno
amniga magaalada caasimadda ah ama guud ahaan Soomaaliya laakiin si gaar ah caasimadda waxay ahayd dhibaatooyin la kala dhaxlay oo aan la dhihi karin maamulka hadda jira ama mid ka horreeyay ayaa si gaara u khuseeya haddii ammaan darradaasi jirto oo aan qirno in ammaan darra jirto maxaa u sabab ah ammaan darradaas aad is leedahay xildhibaan Goodax bismillahi raxmaani raxiim universal iyo dhammaan inta dhegaysata waa salaamaya assalaamu calaykum walaalahayga dooda ka soo qayb galay iyagana si gaara ayaan u salaamayaa amniga waddankeena muddo ayuu faraha ka baxsanaa dhammaanteen waa ognahay waxaa sabab u ah dad dana shisheeye u adeego oo la magac baxay shabaab oo meel lagala xaajooday cid lala xaajooda aan lahayn una shaqeeya dad ajaanib ah oo ujeedadoodu tahay waddankeenna iyo waddamo kaleba inay burburaan lagana fuliyo rug u noqoto argixisada adduunka waa mid salka ku hayso dhaqaale siyaasaddaas ajnabiga waxayna soo adeegsadeen nasiib darro dad maan gaaban oo magac diimeed adeegsanayo muxuu ahaa oo aan arxan lahayn dhaqan diinna lahayn ayay soo adeegsadeen muddo dheerna muxuu ahaa waddanka way ka shaqaynayeen oo howlahooda guracan ay ka wadeen marka amniga waxaa sabab u ah amni xumada waxaa sabab u ah waa naqaanaa waa shabaab su-aashu marka waxay noqonaysaa amnigaas xumaaday see loo soo celiyaa meeshaas waa meesha aaraa badan iyo qaabo badan mahadsan waqti dheer shabaab ilaa 2009kii dhinacay u baxeen oo waa ka baxeen waxay meelay ka tirsanayeen sidii maxkamadaha oo kale waas cadeeyeen 2009 markaa waxaa laga joogaa muddo 10 sano ah 10kaas sano waxaad moodaa inaan weli u heli la'nahay xal muuqda oo aan nimankaas ayaga ah aan magaalada Muqdisho ugu yaraan aan ka xeerino amnigeeda marka sababtu maxay tahay ma jaangooyada naga qaldan ma fulinta iyo waxqabadka ayaa naga xun ma iskaashiga hay-adaha qaldan ma waaye aragnimadaasi wax ka jiraan xagee wax ka jiraan intaa sheegtoo dhamay wax ka jiraan muxuu ahaa in la maareeyo shabaab waxaa loo baahan yahay dhaqaale dhaqaalaha waxaa looga baahan yahay xog waxaa looga baahan yahay qalab waxaa looga baahan yahay dad waxaa looga baahan yahay in waxa ay haleeyaan lagu sameeyo waxaa kaloo loo baahan yahay ka qaybgalka dadweynaha dadku inay arkaan inay ka qayb galaan ka qaybgal la-aanta oo ilaa xad runtii adag in dadku ay ka qayb galaan waxa ugu weyn waxa weye naxariis la-aanta ay ku shaqeeyaan dadka way dilaan ciqaabkooda oo dhan waa hal adduunku ma yaqaan ciqaab hala halkooduna waa dil caawa tvgan qofkii fiirsada waa dilaya noloshu qiimo ugu fadhido taa marka waxay keentay ka qaybgalkii dadweynaha inay ka qayb galaan inay adkaato laakiin haddana waa u maangaabnimo dadweyneho maxaa yeelay haddaa marba dhimanaysid waxaa fiican adoo cadowga la diraraya inaad dhimatid adigoo cadowga gacan adag ku haya inaad dhimatid laakiin adoo guriga dhex fadhiyo inuu markuu ku dilaysto kadib ku dilo xal maaha waxaa kaloo loo baahan yahay oo mataqaanaa in dowladnimadu adkaato oo dowladnimadu ay xoogganaato maxaa yeelay shabaabku marka horeba nama soo galeen haddii aan dowladnimadu naga dumi lahayn mar haddii dowladnimadii duntay waxaa abuurmay meel argixisada adduunka ay mataqaanaa ay ka bilaabaan shaqo argixisada adduunkana waxay noo ikhtiraaceen nimankan shabaabka laleeyahy marka wax ka qabadkiisu way adag tahay runta marka loo hadlo laakiin wax lagama qaban lama dhihi karo shabaab beelkan ay ku noolaayeen ay ka talinayeen maanta kama taliyaan maanta baawur wax lagu dhajiyo markii dariiqyada la furo la yidhaha dadku ha shaqaysto baawur weyna qarxinayo markii dariiqyada la xiro oo la fitisho waxa beelka soo gelayana baawuray wax ku dhajinayaan miinay meel dhigayaan qof jaakad xirana qarxaayo yacni runtii cadowga noociisa noocaas marka waxa keliya looga bixi karo waxa weeye aniga aragtidayda in
shacabku istaago qaabkay doonaan ku istaagaan xataa qabyaaladan dilowdaha ku istaagaan shabaab kuma jecla qabiil ku kaco noocee doonaha loo istaago in shacabku istaago ay dhahaan wixii dhacay waa nugu filan tahay mar dambe ma dul qaadanayn markaas gacanta loola tago qofka shabaabka uun waa ku baqdan gelinaya mahane wuxuu ku dhaamo male waa adoo kale marka saasay ila tahay wasiir waa mahadsantahay doctor cilmi haddii aan ka soo qaadno dowladdu inay tahay ayaga amniga inay maamulayaan oo ay ku mashquulshan yihiin oo habeen maalin ay ku jiraan oo laga yaabo in daldaloolada jira iyo wax kasta aysan u muuqan karin dadkiina bannaanka jooga oo aan ku jirin hawshaas maxaad talahaad soo jeedinaysaan maxaad u aragtaan amnigu inuu intaa nagu qaato oo waqti ah inaan xalli weyno maxaad u aragtaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله horta marka hore waan salaamayaa bahda universal iyo ummadan dhegeysanaysa saaxiibadeeda halkan ila fadhiyo wasiirada iyo xildhibaanka marka ku xigana waxaan u tacsiyeynayaa runtii on leeyahay muxuu ahaayey ninkii cawil allah u naxariisto oo runtii barnaamijkan daadihin jiray aadna doodihiisa iyo qaabku moogtay aad iyo aad runtii barnaamij waxgala u ahaa intaa ka sokow runtii amnigu waxaad moodaa muxuu ahaayey mushkiladda haysataa ama Soomaaliya ha noqoto ama Muqdishoba gaar ahaaneed waxaad moodaa waxaan adduunku la qabin inay tahay adduunyada dhan meel aanay moogtay dhibta taala aanay la qabin bay iyay noqotay ama ha noqoto muxuu ahaayey waxa la isticmaalayo ama tacticada la isticmaalayo ama muxuu ahaayey qaraxyada dhacaya ama dhimashada dhacaysa in yaroo kooban oo magaaladii caasimadii oo muxuu ahaayey 10 kilomitir iyo muxuu ahaayey dhinac walba ah ama wax ku dhow in muxuu ahaa amnigeedii runtii la sugi kari waayana waxaan u malaynayaa oo xukuumaddii ay sugi kari weydo muxuu ahaa amniga intaa leeg masaafada intaa leeg waxaan u malaynayaa kulley khalal baa jira dhinac u ka jiraba khalal weyn baa jira oo u baahan in la daraaseeyo caasimad keliya oo xukuumaddii u ah muxuu ahaayey kursigii ay ku fadhiday ah oo xaruntii caasimadda ah oo ciidamo xoog la haysato muxuu adduunyada ka yimiday haysatana muxuu ahaayey runtii ciidamo fara badan oo Soomaaliyeedna ay joogaan haddana inay awoodi weydaay waxaan u maleynayaa waa wax adduunyaduna malaha tijaabooyin darsi ay ka baranayso way in amnigii la sugi kari waayo marka waxa fiican waxa jira waxyaabo badan oo aan moogtay xukuumadda ku guda jirta iyada moogtay hawshii wada iyada muxuu ahaayey fulintii ah iyada muxuu ahaayey waajahaysa runtii muxuu ahaayey inay dhibtan ay joojiso inay waxyaabo fara badan soo bandhigtay hadda waxyaabaha misalan baabuurta lagu dhajinayay ama qaraxyada nooca dhacayay waxaad moodaa meel ay ka dhacayaan adduunka ma maqal baabuur waxaa lagu dhajo sida muxuu ahaayey qaraxyadaa sameeya waxaad moodaa inaga keliya laynoo soo sameeyaa muqdisho keliya ma loo soo sameeyaa meel haddaad warbaahinta ay ka dhacayaan oo joogto uga dhacayaan marmar iyo dhif waa suuragal laakiin meel ay joogto uga dhacayaan Afghanistan waa moogtay waa dhacdaa laakiin qaraxyo waaweyn iyo isdil baa dhaca laakiin baabuur lagu dhajay oo muxuu ahaayey ay moogtay maalin walba taaganay runtii waa wax moogtay runtii musiibo gaar moogtay halkan ka jirtay tahay laakiin waxa la yaab leh masaafada intaa leeg oo Muqdisho kaligeeda iyadoo Kismaayo ay moogtay awooday Jubbaland inay muxuu ahaayey nabadgelyada sugto muxuu ahaayey Kismaayo iyada awooddo muxuu ahaayey Puntland inay sugto nabadgelyada caasimadii inay sugto oo si muxuu ahaayey ka wanaagsantan iyadoo Somaliland moogtay ay nabadgelyadii inay sugto ay awooday maxaa suuragal ka dhigay inay halkan la sugi kari waayo muddada intaa la eg runtii waa waxyaabaha su'aalo u baahan doctor cilmi adoo mahadsan ka soo qaad Ciraaq oo markaan soo qaadno magaalada Arbil la yiraahdo waa taqaanaan filayo waa sax nabadeedu waa sugantaa 100% laakiin Baghdad ma sugna waxaana keenaya dadka iyo waxaa keenaya dawladdii meeshay degan tahay oo dadweynihii ku badan yahay halkan sida aan ognahay Muqdisho kale waxaa ku badan dadkuna waa ku badan yahay dawladaha adduunka waa degan yihiin danihii oo dhan ka socda meesha aan dhigi karno Hargeysa iyo Kismaayo iyo Garow oo kale hadda dad kooban iyo ayaa degan adduunkana ma jooga soo ma dhigi karno oo mushkilada Muqdisho iyo Hargeysa la isma dhigi karno macnaha masaafada ka weyn kaliya baad oran kartaa ama populationka ka badan waad oran kartaa laakiin qaabka iyo tacticada ilaalinta iyo muxuu ahaayey istaraatiijiyaadku waa isku mid weey waxay ku kala duwanaan karaan haba yaraatee ma jirto hadii muxuu ahaayey kuwaana in ku filan u baa suuragal noqon lahayd laakiin magaaladani in muxuu ahaa muddadaas intaa leeg
oo shacbi intaa leeg ay ku dhimanayaan oo maalin walba dhibtaasi ay taagan tahay khalalku xageebu ka jira waa in moogtahay xukuumad ahaan iyo shacab ahaan iyo aqoon-yahaan la daraaseeyo iyo culimo ahaanba oo muxuu ahaay maxaa inaga qaldan la yiraahdo waxa kale oo iyadna muhiim oo moogtahay inaanan muxuu ahaay la isweydiin karin oo wixii wax la qariyo oo si moogtahay qarsoon inay dadku ku dhamaadaan ay noqoto oon cidiba weydiin cidiba ku xisaabtamin cidina aanay xaqiiqadeeda soo bandhigina iyadna waa musiibo kale weey wasiir cabdiraxmaan muddo dheer ku soo jirta dawladda wax badanna waad ogtahay aan filayaa macnaheedu markaan fiirino way arrimadaadii hore maxaa kuu muuqda adoo hadda dawladdana ka tirsan maxaa kuu muuqda oo dhihi karnaa duleelada jira meesha ay ka jiraan iyo sida aad is leedahay waa lagu badbaadi karaa bismillahi rahmaani rahiim marka hore universal waa u mahad celinayaa tacsida walaalkeenna waa la qabaa walaalkeen cawil ilaah u naxariisto jannadana allaha geeyo annagana gadaashiisa ilahay nama fidnayo horta waxaan u baahan taariikhda in dib loo celiyo 10 sano ugu dambeysay anuu xildhibaanna waa ahaa golayaashii soo mara meeshaana waa ku jiray maraaxil ayaa waxay soo martay caasimadda iyo Soomaaliya guud ahaan waxaana soo martay mar meeshaan aan joogno ay shabaab haystaan annaguna aan madaxtooyo joogno oo masaajidka madaxtooyada xabadda ay wiiftada ku dhacdo mar waxaana soo martay caasimad inta la qabtay haddana madaxtooyada la isku soo weeraray maraaxishaas kala duwan ee soo martay maxaa 2000 iyo dhacay maxaa hadda dhacayo maxaa shalay dhacay inaan dib horta xisaabta u celino kadibna aynu fiirino maanta maxaa waxaan rootiinka maxaa lagu bedeli karaa oo isleeyahay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul xasan cali kheyre in ay hadda fahmeen waxaan sababta keeni karto anaga waa ogtahay ciidamadii Soomaaliyeed noo dhisnaa waxay ahaayeen ciidamo ku bilowday hab qabiil oo u dagaalamay hab qabiil dawladuna ay markii dambe ay qaramaysay Allah u naxariisto Cabdullaahi Yuusuf soo bilaabay waxa kala wareegay madaxweyne Sheekh Shariif waqtigiisa waxaa la bilaabay in dhismihii ciidanka dib loo soo bilaabo haddana dhinaca kale dagaal shabaab oo arxanaawayaal oo dagaalkooda uu joogto yahay oo qaraxooda joogto yahay oo waxa aan isku hayna ay yihiin afkaar aysan ahayn degmo iyo gobol iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo siyaasad iyo annaga isku mayn annaga shabaab waxa naga dhaxay waa mabaadi iyo afkaar khaldan oo aaminsan yihiin qof kasta oo Soomaaliyeed inuu gaal yahay noloshana ay kala dagaalayaan marxaladda runtii ciidanka Soomaaliyeed waxay soo mareen marxalad adag oo ay soo gudbiyeen oo soo gaarsiiyeen meeshan hadda joogno hadda maxaan u baahanahay annaga hadda waxaan u baahanahay ciidanka Soomaaliyeed dib u habeynta hadda dawladda ay wado in ciidan xoog leh oo ciidan tayaysan oo askari nambaraysan oo xeradu jooga la yaqaan oo meesha ka howlgala la yaqaan oo isku dhafano midka Baydhabo ka yimid iyo midka Jowhar ka yimid iyo midka Hargeysa iyo Boorama ka yimid iyo midka Dhuusamareeb ka yimid in inta la isku dhaxdaro ciidan nidaamsan oo habaysan oo la dagaalami karo wajihi kara cadawga in laga sameeyo ayadan hadda waa bilaabatay ciidanka ugu horeeya hadda waxa ogtiin dagaal ku jira oo shabaab la dagaalamay shabaabna hadaanan ayaga loogu tagin dhufaysidooda iyo xarumahooda ay joogan lagama guuleysan karo saa ogtiin sanadkan gudihiisa ilaa 30 ataaga waxaa dhacay oo la weeraray ciidamada ay weerareen Soomaaliyeed oo loogu tagay xarumahooda in loogu tagay waa ogtihiin sanadii hore waxay ataagi jireen meelaha qaar bariiray ataageen ceel cadday ataageen waxay soo ataageen leegay ataageen 2015 ilaa 2016 wixii ay sameyn jireen maanta ma sameeyaan oo jabhadihii iyo shabaab dagaalkii ay ka wadeen banaanka waa ka soo aruuray duqeyminkii 28 jeer sanadkan kaliya la duqeeyay ilaa 28 jeer yaa dawladaha caawiyo oo Mareykanka ugu horeeyay duqeymo u geysteen ciidamada al-shabaab ciidanka Soomaaliyeed commandos-ka ahna ilaa 30 jeer wax ka badan ay goobooda inta ugu tageen ku soo laayeen shabaab waa maasanta wasiir waxaan rabay waxa intaas oo dhan iyadoo jirta oo sida aad sheegtay Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif ilaa Xasan Sheekh la soo qabanay laakiin horumarka aan sameynayno oo laga sameeyay amaanka inuu gaabsi had muddo hadda waxaad ka dhawaajisay ciidamada in lagu sameeyo dib u habeyn waana wax wanaagsan dabcan laakiin ma kula tahay in ay intaas lagu mashquulshan yahay dulduleelo badan ee soo baxeen oo aad moodo in lagu soo kulleeyay caasimada markaan u soo noqdo hadda adaa iga dhaxgala warkee caasimada ciidan gaar ah loo diyaariyay oo ciidanka xasilinta caasimada la yiraahdo hadda ay diyaar garowda ugu dhameystirnaa ay qalabkoodii iyo dhameystirkoodii ay hadda ku jiraan waxaan is leeyahay wax badan hadda iska bedeli doono sida ay hadda ahaan jirto hadda waxay ku soo aruureen
dhacdooyin dhacay waay qaraxa ma jiraa haa waa jiraa laakiin ataagaan waa ogtiina shacabka Soomaaliyeed maqaayad mid jooga iyo mid isbitaal jooga laba meel aan waxa u maleynayaa ay sanadkan ka ataageen wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo xeradan booliska degiin xerooyinka dawladda meelaas ka tahay laakiin xagee ataagaan dawlad macnaheedu hoteeladii suuqyadii maqaayadihii hoteeladii meelaha dadka bulshada isku yimaadaan maxay la dagaalayaan marka ayaga hadda ay rabaan waxa waay waxay la dagaalayaan shacabka inay morally niyajibiyaan shabaabna ay u tusaan in ayagu ay awood weli leeyihiin laakiin aan aaminsanahay awoodoodii gudaha nimanka khilaaf xuna ka dhaxeeya oo hadda isma haystaan jabhadahoodii burburaa ku socda nidaamkoodii burburaa ku socda shabaab qof gala hadda ma jiro qof ka soo baxa moogi that is why marka ay u dagaalamayaan inay shacabkii niyad inta ka jabiyaan ay miinooyin iyo baawar wax lagu xiro waxa hadda xildhibaanku uu sheegana adduunka dhan waxa waa la isku xiraayo miinadan waa jirtaa laakiin maxay hadda u soo bateen waxay u soo bateen inay sii daciifayaan oo ay rabaan moral inay ka dhigtaan inay shacabka Soomaaliya ku dhibaato ayadana waxaan isleeyahay hadda ciidanka loo diyaariyay xasilinta caasimadda oo dhameystirmay qalabkooda iyo tayintooda iyo howlgalkooda hadda u dhameystirmay waxaan rajeynayaa inay wax weyn ay ka bedelmi doonto gudaha ciidankii jabhadaha ahaa ee dagaalamayay ama ciidanka Soomaaliyeedna ayaguna ay hadda sameyn doonaan maalmaha soo socda si hadda u sameeyeen hadda sabiibay qabsadeen bariiray ku sii socdaan oo dheegle jannaale ciidanka Soomaaliyeed ku sii siqaayo oo hadda la isku dhafay ciidanka ugu horeeya oo waliba nidaamsan oo habaysan oo tayeysan oo commanderkooda iyo waxooda iyo qalabkooda u dhameystiran haddii marka aan xoojino jabhada dagaalka banaanka aan xoojinana gudihiina aan hadda sida ciidanka Soomaaliyeed booliska Soomaaliyeed hadda loogu wareejiyay caasimadii nabad sugudana lagu soo aruuriyay xog aruurin iyo sirdoon sida haddii ciidanka dib loogu nidaamiyo waxaan isleeyahay waxaan ka gudbi doonaa wixii laakiin maraaxiisha hore haddaan ku noqono oo jugjug meeshaada joogay noqonaysa hadda istaraatiijiga cusub ee xukuumadda nabadda nolol keentay waa isleeyahay isbedel ayaa ka imaan doona dhamaadka sanadkan insha Allah xildhibaan Cabdixakiim soo dhawo mar kale waxaan sida ay ka hadleen saaxiibadeen annagu waa isku duubanahay guud ahaan ama xukuumad aan ahaano ama aan ahaano xildhibaano ama aan ahaano shacab waxaan wada saaranahay hal doon taas hadalka ma taagna laakiin iyadoo sidaas shaqada kala leenahay oo ragna falay kula jiraan ragna kula ma jiraan faraha oo ciyaarta waa fiirsanayaan oo wax badan arkaan maxaa idin muuqda dadkiina aan hadda xukuumadda hawsha ee ka waramay wasiiradu aan ku dhex jirin mar kale haddaan ku weydiiyo maxaa idin muuqda xaggee tala ka soo jeedi kartaan oo laga sixi karaa amniga bismillahi rahmaani rahiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah marka hore ustaad xasan oo barnaamijka taadihinaya waan u mahad celinayaa guud ahaan tv-ga iyo maaragtay universal akhyaarta igala qaybgelaysa ee wasiirada iyo xildhibaanana waa wada yihiin ayagana waan salaamayaa iyo kasoo qaybgalayaasha wasiirka saaxiibka Hirshabeelle uu ku jiro tacsidana dee waxaan u diraynaa walaalkeen Ilaahay ha u naxariisto waan la wada qabnaa runtii aad bayna muhiim u tahay haddii aan usoo gudubno mawduuca waxay la tahay hadda wasiir Cabdiraxmaan wuxuu soo sardiyay ama uu ka soo hadlay maraaxisha amniga uu maray iyo 10 sano u dambeysay heerarka uu soo kala sidoo uu soo bedelay waxaan shaki ka jirin dadka Soomaaliyeed inay leeyihiin cadow ugu muhiimsan oo la yiraahdo shabaab waxaan shaki ka jirin inay doonayaan inay shacabka gumaadaan dawladda xafiisyadeeda target u yahay dhaqdhaqaaqa dadka ay rabaan inay xanimaan dhaqaalaha inay ka baabi'iyaan mustawaha taxaddiga iyo ayaga awoodda isticmaalayaan iyo taktiigooda way qorshaysteen wayna ku shaqeeyaan waxaan fiirinaynaa dhinacaas markii la fiiriyo maxaa balance gareyn kara dhinaca kale yay tahay inay tilaabadooda midda ka hormarsan ama ka muhiimsan ama amniga dadka iyo mas'uuliyadda yaahaya yay tahay in lagu xisaabtamo maxaa ka khaldan maxaa u saxan Cabdiraxmaan aad u mahadsan yahay wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadday fahmeen 2 sano markay soo dhamaatay in ummadan dhibaato haysato oo ciidankii dib loo habeeyo waxay fahmeen annaga saan u arkaynay fahamkooda hadba isbedbedelayay mar hore ciidamada uu sheegayo ee isbedelay 20 jeer isbedeleen intaasoo jeera waxaa loo sameeyay dalka laga sameeyay ciidamo hadba dhar cusub isma yaqaanaan tuutaha beledkan ka jira hadda mid yaqaana ma laha 10 ciidan oo kala kalara 10 ciidan oo hadba maalinba mid lagu dhafay nisa xagga loo wareejiyay booliska xagga laga keenay militariga qayb laga soo waday 10 ciidan la sameeyay haddana waa la kala diray way qarimatay godada la jeexay xaafadihi la xirxiray amniga waxaa ka maqan aniga aragtidayda
haddii aniga waan hadlayaa microphone aanan helin ra'yigaygu dadka ma gaari karo TV-ga la igama dhageysan kara haddaan qalabkan la isku xirxirin waxaa maqan oo dalkan ka maqan qorshe ma jiro amni askarigii waa joogaa hubkii waa joogaa dareenkii iyo shucuurkii dadka islaamiyed wuu joogaa cadow tabar daran wuu dilayaa oo aan awood lahayn laakiin waxaan jirin qorshihii dhinaca kaleeto amnigan hindise iyo qorshe loogu talagalay in amniga lagu sugo ma jiro waxaan dareensannahay intaas ayadoo ay jirto qorshe la-aantana inay asal ka sii tahay dadkii abuuri lahaa qorshihiina inaysan jirin yacni aaladii iyo aaliyaadkii lagula dagaalami lahaa cadowgii ma abuurna qorshihii ma jiro dadkii qualifiedka ahaa ee qorshahaas difaaci lah ku shaqayn lahaa ama howlgelin lahaana ma muuqdo dadkii way dhimanayaan haddaad ka hadasho xildhibaankii anoo aan ka hadlana dembiilana waa inay golaha wasaaradu haddaan caawa u yeero cabdiraxmaan oo aan damca inaan shaqada uu hayo wax ka weydiiyo anoo baarlamaankii ah waa in golaha wasaarada caawa shir degdega la isugu yeeraa oo ay go-aan ku gaaraan in cabdiraxmaan berri layga difaaco si aana su-aal baarlamaanka ugu weydiin yacni aragtida dowladnimada ee dhan ee socota waa aragti aada u hooseysa oo gaaban waayo waa aragti aan qorsho lahayn waa aragti kusoo booda iyo maalintii wixii dhaca ku shaqaysa wabitaali waxaa dareemaynaa annaga hortanadana yaalla waxa waaye waa istiraatiijiyad inuusan jirin amni waana inaysan jirin istiraatiijiyadaas cid xataa u fakeri karta oo dareemi karta oo keeni karta curin karta afkaartii amni ee dalkan lagu xasilin lahaa laakiin cadowguna ma cusla cadow weyn ma aha meel uu jooga ma laha waa cadow dareen ku salaysan waaye hadda adiga soo koofto maxaad is leedahay 1 2 3 ay ku habboon tahay in la sameeyo wallaahi aniga de waxay ku habboonaan lahayd waxaan is leeyahay 2 sano soo dhamaatay wasiirada sharafta leh iyo xukuumadoodu way istijaabiyeen waa inay qancaan yacni xukuumadaa ka horreysay madaxweyneyaalaha ka horreeyay dalku ka fiicnaa sidaan sheekh shariif xilligiisa magaalada muqdisho laga saaray cabdiraxmaan isagaa wasiir goodaxa wuu joogay xilligaas anigu xataa kamaanan tirsanay systemka xilligii sheekh shariifa magaaladan shabaab laga nadiifiyey xilligii xasan sheekha la sii gabangabeeyey qaraxyadu way jireen laakiin way kala dheeraayeen asaabiicdii ugu dambeysay ama wiigagii ugu dambeysay sidii qaraxyadu ay ahaayeen oo isdul saarnaa macnaheedu waxay muujinaysaa shaqadan waad qaban weysa waxa kaa dhiman adiga inaad dareento waayo aniga inaan ku dhaho ma awoodid waxaa ka fiican intaad garato adaa lagaa rabaa inaad xadad xanuunsanta isbitaalka aado khiyaarta sharafta leh ee xilka ama ilaalinaya waajibaadkii dadka ka saarnaa iyagaan la-ayn kifaacaday dadka ku ilaalin lahaayeen marka waxay ku fiicnaan lahayd inay iyaga fahmaan inaysan awooddaa lahayn oo 2 sano ay hubiyeen taaqadooda iyo awoodooda wasiirkooda muddo dheer waa kusoo jirta dowladda sida ka warqabno waxaa soo qabata xilal culculus oo ay ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha oo aan filayo in arrimahaas xog badan uu ka hayo nabadda gaar ahaan waxaan filaya marka inay xilligaa isku jireen dhaliilaha uu sheegay cabdixakiim iyo dowladda muuqanaya maxaa aad is leedahay haddii la qaado oo 2 sano weliba hadda waan soo marnay sida uu sheegay maxaad is leedahay haddii la qaado 1 iyo 2 iyo 3 maxaa la qabanaya oo loo gudbi karaa waa mahadsan tahay runtii qoladan mucaaradka dhaliilo badan waa sheegaan qaarkood macnay samaynaysaa intooda badan macno ma sameeyo waa dhaliil aan tilmaamayn xal wadiiqooyin badan oo xalka lagu sheegana dowlad ahaan waa u samaysannahay baarlamaanka guddiyo wanaagsanaa jiro sida hadda maalin dhaweeto naga fashilantayna waa loo yeeri karaa oo waxbaa la weydiin karaa talana waa la sii karaa marka uun hadafku waxa weeye waa wax xun hala sheego ilaa xukuumadda iyo dowladdu ay shabaabka isku dhiibaan waxaad moodaa in dadka saaxiibada ay noocaas fikirkooda yahay haddii kale waxaan arki lahayn iyagoo le war meeshan ka qabta oo kan yeela oo kaas waxeeya oo yani wax lagu shaqayn kara sheegay keliya waa uun in la cambaareeyo la yiraahdo dowladdu waa daciif waxba ma hayaan qorshe ma hayaan waxaasoo idil waxay u danaynaysaa cadowga shabaab maantay waa isku wada raacnay inay maanta liitaan laakiin haddana annaga laftirkeen aa dhinaca kale ka xoojinayno marka hadda uu shabaabku maqlo barnaamijkeenan ee uu dhegaysto in xukuumaddii dadna haynin aqoon leh aysan haynin qorshe haynin aysan istraajitiye haynin aysan dhaqaale haynin yani waa dhiiranaya ninkii aada u dhiiranaya waa xun waday marka taas xal ma ah waxa u horeeya waxaa weeye horta maantay shabaabku wuxuu ka nool yahay
oo ku nool yahay rajagelinta mucaaradka oo iyagu hadday og yihiin iyo haddaysa ogeenba runtii afcaashooda ay dhiiri geliso naftana ay ku hayso shabaabka. marka horta xalka koowaad waxa weeye in siyaasiyiintu ay hal dhinac uga soo wada jeestaan oo wixii kaloo dhan la isku khilaafo, laakiin amniga sidii loo baadigoonayo aan la siyaasadayn. horta xalka koowaad waa kaas. xukuumaddu waa liidataa iyo amnigu qorshe male, waxaas wax jira ma aha. qorshe adagaa jiro, qorshaha meeshaan oo kale lagama sheego. oo hadda haddii mucaaradku ay rabaan in la yirahdo kana la qabanayo, xagga la qabanayo, xagga la yeelayo, wax macquula ma aha. muxuu ahaa laakiin waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed iyo ummaddan dhegaysanaysa aan u sheego qorshe ayay xukuumaddu ka leedahay amniga, weligeedna ka lahayd. marnaba soo marin xukuumad aan qorshe lahayn amniga looga hortago. xukuumadihii jiray iyo kuwa soo socdana khasab way yeelanahay. marka waxyaalahan warkan iska faaruqa ah oo qorshe ma jira iyo istaraatiiji ma jirta iyo waxa weye xoogo in laga kaaftooma ayaa ila fiican. shabaabku laba nooc wey dagaalkiisu. mid meelay degan yihiin la yaqaano oo loogu tago oo lagu soo baabi'iyo, waagii baryay dhacdaa ilaa xad ay ka soo wada carareen oo dadka shacabka kusoo dhex dhuunteen magaalada xamar. amiire qaarkood a maalin walba habeen walbo guri walba laga raadiyaa oo beledkan naloo ku sheegay oon raadinayna oo ka soo cararay yani culayska banaanka haysto. gudaha mar allaale markii la damco yani qaabka bifiiri shabaabku xamar markuu joogo fronti ma laha. ninka militariga tuutaa gashan fronti ka dagaalama kafool dad. laakiin nin suuqa wax ku gadanayo, habeenkiina qarax meel soo dhigaayo, ciidanku militarigu lama diriro, waxaa la diriro booliiska. booliiskuna marnaba wax kama qaban karo hadduusan taageero ka haysan shacabka, usan information ku imaanayn, akhbaaraadka iyo meesha ku sugan yahay haddaysa imaanayn way adag tahay, way ka sii xun tahay. marka waxaa hawsha dhan ku dheela waxa weeye markii shacabka in dhiiridooda iyo waxay ka baqayaan in lala macaamilo ay noqoto, oo shacabka kalsooni in la geliyo ay noqoto. oo maalan hadda qorshaha socdo beledka 20 irida laga soo gelaya, gudihiisana waa la fatashaya. waxay qaadanaysaa muddo yar, sitimaan 2 sitimaan. hadda qaraxii maalmahan ma maqash waxbaa hor lagu dhajinaya bilaabeen, laakiin qaraxii albaabadu markay furnaayeen oo mucaaradku intuu nakadeeday la yiri ha la furo bal warkooda aan dhageysano, wixii dhacay waa aragteen. maalin walba qaraxa dhacayo oo 30 qof 40 qof ku dheer ma wax yaran raayna dhamaystiro. hadda nidaamkii markaan sameeyno mucaaradku uu qaylnaa umulaa dhacday, naaga inta ku dhashay, intay ka dhacday, ilmiya iskool aadi waay, xaggee ka dhacday, anaa arkay, anaa yeelay, shacabkii waa la waxeeyey kan waa. xataa mucaaradku waxay ku farxaan markii baawur wax lagu xiro, waa kaasa beledka leedan waxbaan waxayn qarax baa hadda ka dhacay. waxaas waxa weeye waxay taageeraysaa oo keliya shabaabka. doctor cilmi, muddo aada u dheer oo 10 iyo dhowr sano ah waxaa jooga ciidamo shisheeye oo nabad ilaalin u jooga. waa meesha ugu badan oo xaruntooda ku taalana waa caasimadda. ciidamadaa shisheeye mandatekooda muxuu yahay? maxaase ka khuseeya arrimahan? way joogaan, sida dhaqaale badan baa ku baxa magaaladiina ilaa haddeer ama nabadeeda ma sugna. dhinacooda ayaga ma hawl wax laga rabay oo ay fuli waayeen miyaa jira mase shaqo kuma leh? runtii muxuu ahaayey horta amni markii laga hadlayo waxyaaba fara badan baa ku xeersan. keliya ma aha moogtay hadda macnaha cadowga koowaad ee la dagaalamayso waa hebelka keliya ma aha. waxa weeye waa arrimo fara badan baa moogtahay amniga ka qayb qaata. amniga waxaa ka qayb qaata inay moogtay ku caddahay sidaad u sheegtay mandate-ka ciidamadan kula jooga ee moogtay shisheeye iyo inay muhiimadii loo keenay ay gudanayaan. isla markaana qorshihii lagu talagalay ee ahaa moogtahay la yidhi naqshadda muxuu ahaayey siyaasadda amniga ee Soomaaliya muxuu ahaa shirkii London iyo laga hadlay naqshad baa la sameeyay oo la yiraahdo muxuu ahaayey security architecture.
arrintaa oo mogtay baarlamaankuna dood badan ka yeeshay muxuu ahaa laguna soo sameeyey London dowlad goboleedyadu qayb ka ahaayeen ciidamadii Soomaaliyeed sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa sidii ciidamadan muxuu ahaa shisheeye loogala wareegi lahaa muxuu ahaa amniga dalka loogala wareegi lahaa arrimahaas oo dhan baa ku cadnaa siyaasada cadcad baa markaa meeshaas ku jiray halkay ku dambeysay taasi oo waxyaabaha isweydiinta la weeyey isla shaqayntii ciidamada muxuu ahaa shisheeye iyo ciidamadeena amnigu halkee bay maraysaa iyada lafteedu waa arrin muhiim ah hay-adihii sirdoonka ee kaala shaqayn jiray arrimaha amniga xaggee bay ku dambeeyeen iyada lafteedu waa muhiim weeye muxuu ahaayey sideeba ciidamadaadii 19 jeer sidoo Cabdixakiim xildhibaan Cabdixakiim u sheegay 19 jeer baa la bedelay oo shaarka laga bedelay oo dhinaca loo wareejay oo la kala wareejay oo taliyaal la bedelay oo muxuu ahaa ku cusub la keenay markastoo la yiraahdo dagaal baan ku jirnaana halka laga bilaabaa muxuu ahaa laga bilaabay in ciidamada xil isku bedelo madaxweyne Farmaajo markuu yimiday qaraxyadii ugu horeeyay markay dhaceen 2 bilood buu yiri dalku dagaal buu ku jiraa oo tuutaha gashaday halkii laga filayay inuu dagaal galayo oo moogtay dalku uu xiroobayo oo moogtay amni la bishaaraysanayay talisku fadhiistay markaas muxuu ahaayay taliyaashii ciidamadii iyo wixii oo dhan isku bedelay dagaal iyo taliyaal baan isku bedelayaa muxuu ahaayay isma qabato ciidankii lafteedii maxaa ku habaysan mudda lagu soo jiray ciidanka dib habayn ha lagu sameeyo tirakoob ha lagu sameeyo guddi maaliyadaha anagu saasan 100 jeer ku baaqnay laakiin si garaajo wala si muxuu ahaayay cilmiyeysan oo guutooyin iyo koox loo sameeyo oo ciddii la diiwaan geliyo loo kordhinayo waliba mishaarka loo kordhinayo ma ahayn mishaarka laga reebo hadda waxa soo baxday iyadoo la leeyahay ciidankii baa dib habayn loo sameeynaya waa la diiwaan gelinayaa in kooxo fara badani mishaarkii muddo badan ay muxuu ahaayay ay ka baaqdeen isla markaana dadka waxa kaloo kamid ah in xaqiiqadii loo sheegin oo marka qaarkood xaqiiqada la garan maro oo haday dadku kugu ogaadaan in xaqiiqadii garan marsan tahay caday abuuraysa sidii ka dhacday in ciidamadii mishaar la siiyay kadibna madaxweynuhu yiri 3 bilood mise 4 bilood muxuu ahaayay mishaar qaaran helin baa jira bina hadalada noocaas ka soo yeerayay waxay dismoral bay ku ridayaan muxuu ahaa ciidamada waxa kaloo muhiim ah inaad moogtay wax qabadkaaga xaqiiqada ka sheegto oonad ku faanin amni baan sameeyay adigoo muxuu ahaayay gurigaagii gubanayo inaanad ku faanin marka xaqiiqooyinka dhabta waa in la sheego waxa kamid ah amniga in dadka muxuu ahaayay acyaanta ay muuqda siyaasiyiinta la xajiimeeyo oo la yiraahdo maalin walba cid lagu duulo ha noqoto baydhabo lagu duulo ha noqoto muxuu ahaayay cid baa guriga laga qaadayaa iyo muxuu ahaayay jagooyin laga qaadayaa lagu duulo ha noqoto waxyaabahaas oo kale abuuri kara ha noqoto muxuu ahaayay xitaa riditaankii jawaari iyo dadku waxyaabahaas oo dhan bay eegayaan arrimahaasi kalsoonida shacabka waxyaabaha iyo ummadda iyo siyaasiyiintaba waxyaabaha moogtay si wiiqayay ay kamid yihiin hadda doonayso markaa inay dadkii kala qayb galaan aan mid yar ku soo khatimo hadda doonayso shacabkii iyo ummadii iyo siyaasiyiintii arrimaha amniga la wada garab istaago horta waa inaanad muxuu ahaayay xajiimeynta iyo cid ku duulka iyo aarsiga iyo muxuu ahaayay cid jaga ka qaad iyo muxuu ahaayay ka rid iyo moogtaan oo waliba xoolo lagu bixiyo inaan horta ka muuqan way waa inay nabadoonnimo iyo madax salaax iyo inaan dalkan u jihaysan yahay inuu amnigiisa iyo wanaagiisa soo ceshado horta waana cid walba la iska dhaadhiciyo taasi runtii ani way la tahay waxyaabaha ku xeersan muxuu ahaayay amniga ku xeersan ay kamid tahay Cabdiraxmaan haddaan su'aasheeda ku noqdo Amazon way joogtaa dhaqaale badan baa ku baxa ciidan badan iyo hub badan way haysataa iyo khubaro fara badan ma kala xisaabtantaan mandatekeedii ma fulisaa ma kala xisaabtantaan inay hawsheeda qabsato mase waxaa jira xagga iskaashiga hawl laga rabay raggaas miyaan la qabanin عندي ورطة ما سنتها ورطة أمسهم وموجود جارة أو بهرنتي جار إن الله فيريو سيد أهل جليسة إيمان ديت كده يسيد أتمدي سو شقين يسو وقرشة أباهن إن دي بنت الله فيريو أمسهم لفت كده اللي يراد محين ناقبت واحد بدو الناقبت وصح حد من حال الربعين قبلنا أنا جا حال الربعين أسكت النورد كسومالي هان أنا جا الربعين كينا دسنا أنا جا الربعين قرشة الإيمان haddii annaga ciidanka la dhisayay dhismihiisa hadda uu meel fiican marayo haddii aniga shal wasaaradda gaashaandhigga mar wasiirka ahaan jira ciidanka Soomaaliyeed inta taliyaha lacag loogu dhiibo oo boorso ku qaado oo intuu u geeyo u qaybin jiray hadda waxaan maraynaa ciidanka qof kasta askari inuu akoon inta furto akoonkiisa ay ugu dhacdo la siiyo la nidaamiyo ma taasaan qorshe ahayn in askarta iyo ciidanka la isku dhafo oo midka beledweyne ka yimid iyo midka baydhabo ka yimid la isku dhafo oo hal ciidan oo hal calan laga sameeyo ma taasaan qorshe ahayn
qorshaha la rabaa aniga aan garan waayey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya markuu tegayay wasaaradda gaashaandhigga wuxuu u tegaba waxa inuu nidaamiyo magaaladana kuu soo harta caasimadda magaaladan caasimadda hal ciidan ka howlgala ciidan boolisaa la yidhaahdaa ciidan kale oo magaaladan jooga ma jiro shalay ciidamadan la isku dhafay oo tirada badnaa qaaraa waxay ciidamo nabad sugid oo qoryo wata bal ciidan askari nabad sugid oo loogu talagalay inuu xuuraan iyo xog raadiyo oo qori wataa jiri jiray dowladdan qorsheeda waxaa ka mid ah in ciidanka nabad sugidda ee qoryaha wata inta la baabi'iyo ciidanka booliska soomaaliya la xoojiyo si ayagu amniga caasimadda ay u qabtaan ciidankaa shaqada loogu talagalay nabad sugiddana ay qabtaan oo xuuraankii iyo xogtii cadowgu inay keenaan kuwaanna ay ka shaqeeyaan ayadana maysan qorshe ahayn oo fiican oo horumar lagu gaarayo haddii marka amniga la siyaasadeeyo oo qofkii siyaasiyiinta caraysan oo dhan ay yidhaahdaan maalinta wax dhacaba waxaa dhacayay waxbaa dhintayay shacabka soomaaliya waxaan rabaa inaan dib ugu celiyo meeqa qaraxaa dhacday 45 sano ugu dambeysay 2015 ilaa 18 qaraxaa dhacday 2016 25 qaraxaa dhacday 2017 20 qaraxaa dhacday 2018 qaraxaa dhacday 2019 xisaabaadkeeda weli ma dhamaystirna ma waxaasaan maalin kasta oo caasimadii ka wada dhacayeen qorshe la'aan uma dhacayn laakiin cadowgan waxaan u baahannahay si aan ku wajahno waa inaan qorshe hadda la imaano qorshihii waa socdaa qorshe cusub dowladda la timid waa hirgalay waxaa la rabaa in la sugo shacabka Soomaaliyeed ee ciidanka Soomaaliyeed garab siiyaan oo xildhibaanadu garab siiyaan xildhibaanka waxaa la rabaa askariga Soomaaliyeed inuu moralka u dhiso oo niyadda u dhiso oo garab istaago haddii dhaliilahayaanna meelo iyo madalo iyo goobo aan dhaliilaha iskugu sheegnaa leen oo bini aadan shaqo ku jiraanahay xukuumadda shaqo ku jirtaa dowladda shaqo ku jirtaa booliska nabad sugidda shaqo ku jira waxba dhaliil ka imaan kara laakiin meel la iskugu sheego waa inay leedahay tusaale yar aan siina askari Soomaaliyeed wuxuu dilay wiil bajaajley ah waa xabsataan usbuuc la soo dhaafay waa baxay waa dhuuntay xildhibaanada kamida caraysan oo gurigiisa tagay ilaa caawa la hadlaa waa laga soo bixin lahayd wuxuu leeyahay lama taaban karo haddaa soo taabataan askarigaas anuu uu qabiil yahay guriguu joogaa xasaanadu leeyahay xildhibaankii aniga uma tegi karo ciidanka Soomaaliyeed uma tegi karaan haddii la weeraro waxaa leeyahay wow nabadii nololaa gurigii xildhibaan hebel maanta weerartay dhibaataa ka dhacday waxaa la rabaa marka xildhibaanku aniga xildhibaan ah kulligeyga waaye xildhibaanada dhan runtii waa xildhibaan runtii fiican oo dalka u shaqeeya xaalad adag iyo marxaladna ku shaqeeya laakiin inaan annaga dadka u shaqeyno oo shacabka Soomaaliyeed amnigan waa mas'uuliyad wadareed waa sax wasiiraa jiro madaxweynaha jiro ra'iisul wasaaraha jiro askar booliis nabad sugid iyo militariga jiro laakiin asay qayb ku leeyahay anigana qaybaan ku leeyahay shacabka Soomaaliyeed oo hor fadhiya hadda iyo kuwa idaacadda naga dhageysanayana contribution ay qayb ku leeyihiin qof kasta waa mas'uuliyad wadareed inaan ta wada qaadano gabadha caanaha kiisa iyo wiilka iyo midka xogta u keena haddii shacabka iyo siyaasiyiinta iyo amniga ay wada shaqeeyna meeshaan kama tagi karno oo ma gaari karno meel barwaaqo laakiin waxaa la rabaa in annagu aan u soo wada jeesano dhammaanteen inaan amniga riixno dowladda xukuumadda nabadii nololna qorshe cad oo ku saabsan militariga oo ku saabsan nabad sugid oo ku saabsan asluub iyo boolis oo la yaqaanay jira caasimadan insha Allah waxaan rajaynaynaa haddan isbedelku waa ku bilowday inuu si fiican u socdo laakiin hal isgarab siiyee yaana la dhihin maanta qarax ma dhacsan idaacadda uga hadlo cabdi xakiim xallib cabdi xakiim waad maqlaysaa dee qorshihii waa jiraa waa lagu faahfaahiyey ma waa mahadsan tahay horta dee qorshaha anu kaasuma aqaano kan aan ka hadlayaana in tirakoob ama arqaamtii oo dee qaraxyadii dhaco la rasdiyo ama la tiriyo ama ciidankii oo matalan hadda wuxuu ka hadlay wasiir cabdiraxmaan mid horta waan ka xumahay hadallada mar walba xildhibaanada lagu sheego waxaad u malaysaa inay xukuumadda malaha nooc ma ahdaafteeda muhiimka inay kamid tahay baarlamaanka in la daciifiyo awoodiisa hoos loo dhigo walihaada waxaa marar walba la soo xigtaa hadalla mar walba dhaawac u geenaysanaya baarlamaanka sumcadiisa magaciisa wax u dhimayaa mar walba la hadlaa ayadoon laga hadlin cinwaan faadfaadaha loo sameeyaa iyadoon details iyo waxa hoose laga hadlaya aan la qeexin xildhibaana guriga nin ku haysta xildhibaana xagga saan yeel xildhibaan hebel la dhaho xildhibaan nin tuugay dad dilay guri ku haysan kara ay dhoon bilif inuu beledkan ka jiro wasiir cabdiraxmaan oo kale wasiir oo xildhibaana marka waxaa la rabaa inuu ama yiraahdo xildhibaan hebel gurigiisa qof ku haysta ama baarlamaanka sharafkiisa meel uga dhicin oon loo gafin ilaa inay siyaasadda dawladdu tahay xukuumadda hadda jirta ay tahay oo sidoo ku sheegay aniga waxaan u haystay inay xukuumad Soomaaliyeed tahay laakiin isagoo soo sheegay xukuumad nabad iyo nolol la dhaxway waddankan nabad iyo nolol waxa waaye waa slogan doorasho lagu galay waa barnaamij siyaasadeed laakiin xukuumadda Soomaaliya la yiraahdo caqligeena iyo garashadeena inay halkaas ku salaysnaataa laakiin xukuumadda nabad iyo nolol haday soo sheegay aan u raacno
ahdaafteeda hadday ka mid tahay baarlamaankan in la daciifiyo waa arrin kaleeto oo ay qorsho tahay marar badanaan maqalnaa iyadoo dad kala gedisan ku dhawaaqayaan waxaan rabaa inaan ka hadlo jeyshka oo kaleeto maalan sida wasiirka aan idhaahde xildhibaan uu ka hadlayay hadda cilmi doctorka aniga guddiga maaliyaddan ka wada tirsanaa guddigeena maaliyadda oo baarlamaanka wax laga sheegaya ayaa wasaaradda maaliyadda ku amray inay samayso biometric waqtiyaan u qabanay waqtigay ku fashilantay mid kalaan u qabanna way ku fashilantay ilaa haddaan waqti u samaynaa oo la jadwaliyaa oo waxyaabaha laga rabay waajibkaa hor yaalla ay ka mid tahay bil walba 10keeda ribod inay ka keento waxaa lagu amray 2007 budgetkii ku celintiisii markii oo xukuumaddan hadda cusub la dhisay 2007 budgetkii markii lagu celinayay ayaan budgetkaas ku darnay mushaarka ciidanka $50 baarlamaanku uu kordhiyay oo wasaaradda lagala dooday lagala niqaashay meelaha laga soo goynayo waliba loo sheegay iyadoo diidan ciidankii sidaa loogu amray oo sidaas loo sameeyay ayaysan haddana fulin oo maalin walba cudurdaar keenaysa oo ay ka mid ah shaqooyinkii maalin walba ay ka cudurdaaranaysa marka de horta baarlamaanka shaqadii uu qabanayay hadduu asagii cadow ku yahay haddana oo ay wasiiradu naga dhaadhicinayaan isagaa la dagaalamaya isagaasaan yeelaya isagaan aqbalaynin waa xukuumadda mashruuceedii waa wax kale waxaan kaleeto sida hadda wasiir ka hadlaya doctor cilmi aan sheegnay ama lagu ballamay xukuumadda wasaaraddeeda maaliyadda lagula ballamay in lacag mushaar oo $50 oo loo kordhiyay loogu daro guuto walba soo dhamaystira tirkoobkooda way naga diideen waxay dhan uguma dari karno laanu moralka ciidanka ay dhaawacaysaa qayb wax ma siin karno qayb kama dhiman karno waxay keentay in beddelkeeda laga jartaba mushaarkii oo laba wiilo hal meel difaac uga jira midna ay u dhacdo bishaan midna bisha dambe u dhacdo isbedbedel loogu tuuro which anigu aan dareensanahay hadee waxaasoo kaleeto inaysan noqon karin ilaa musuq mooyaane wax kale aysan noqon karin waa ku farxaan oo yiri wasiir goodax xildhibaanada iyo way ku farxaan oo yiri farxadda ee naxdinta waa wax qalbiga ku jiro qofna ma qiyaasi kara anigu inaan farxayo in kaleeto alla og waxaan rabaa inaan wax yar ii raaleeyo hay'adka amniga mesela NIS oo kaleeto waxaa shaqooyinka ugu muhiimsan ee ay tahay inay qabato soo sheega wasiirka xuuraamiska waay iyo inay keento maxaa jira beledkan yaa qarax niyeysan xataa inay keento waa NIS ayadaa laga rabaa si booliska uu shaqada laga rabo u qaato budgetkii NISA markii booliska oo dhan ciidankii heesay oo dhan laga jaray oo lagu daray booliska waxba lagama bedelin budgetkii miisaaniyadii sidii u haystaa amniga dalkana wuu ka sii daraya ciidanka marka iyo dawladda baarlamaanku wuu sabood garay hay'adahan wuu dhisay dhaqaalihii loogu talagalay ayuu u qoondeeyay annagaa u daynay si ay wax ugu qabato laakiin dee waxaan jirin dadka daaqada u lahaa inay waxaan qabtaan dhinacaas ciladu ka jirtaa hal arrin oo yaraan rabaa inaan ku daro mawduuca ku saabsan wasiiradu ay ka cawdeen horta dalkani waa dal dimuqraadi nimayo ha ka dhiganina nidaam istibdaadiya umana samayn kartaan umana samaysmayo anigu xildhibaan aan ahay waajibkayga koobaad waa inaan dhaliisha sheego kii ku sacbina asaga u taala laakiin anigu waa inaan dhaliisha sheego markaan dhaliisha sheego adaa laga rabaa barnaamij camali inaad u bedesho oo ka faa'iideysato laakiin aniga qorshe kuuma dejinayo adaa mas'uuliyadaas leh waa inaad qorshe ku samaystaa anigu laakiin dhaliishan sheegaya waa maasantii maalin dhawada baarlamaanku arrinta amniga markii laga hadlayay khilaaf waatuu ka dhacay oo la isku qabsaday in xog si hoose loo hadlo iyo in si furan loo hadlo markii dambe waa tii cod loo qaaday haddana codkii inkastoo lagu kala badiyey waxaa dhacday in arrinta ay socaweyday oo warbaahinta inay bannaanka u baxdo buuq iyo inaysan u bixin buuq badan ka dhashay bulshadu waxa iyo dowladda waxaa u dhexeeya warbaahinta inta badan ayadaa laga rabaa inay gaarsiiso waxqabadka dowladda waxay qabsooma wax kasta maxaad is leedihiin sidee bulshadu wax ku ogaanaysaa haddii warbaahintu aysan joogin oo gudaha baarlamaanka si hoose looga doodo bulshada see wax ku gaarayaan isleedahay xildhibaankooda waa mahadsanta waa su-aal fiican runta marka loo hadlo bulshadeenna warbaahin la-aan ma hayso baarlamaankeena waxaan qiyaasayaa waxyaalaha uu keli ku yahay waxaa ka mida 50 kaamero iyo 70 wiiloo cajadaha yararkaa wadato ee baarlamaanka dhexdiisa taagan oo mararka qaarkood aadan guddoonkaaga arki karin oo hortaada dhooban yihiin baarlamaan adduunka jirta ma jirto adduunyadoo idil baarlamaanka hal kaamera taal kaameradaas ayaa laga wada qaataa wadamada dariska haddaa fiirisid maraykankaas haddaa fiirisid ingiriiskaas haddaa fiirisid yacni waa hal kaamera
kameradaasaa dadka wax siiso meel adduunyada ay ka jirto yacni battalion dhan oo journalistaha oo baarlamaanka dhex taagan meelay ka jirta male maalin dhaweetana haddee waxaa dhacay wax xaddhaaf ah oo aan taariikhda soomaaliyana lagu arag adduunkana aan lagu arag oo ahayd in la yiri sirta amniga fagaaraha looga hadla si nimanka shabaabka ay wax ugala dhex baxaan wax uga faa'iidaan in dad mas-uuliyiina oo xildhibaanaa ay ra'yigaas soo jeediyeen lagana yaabo weli inay fikirkaas qabaan waxyaalaha madaxa bini aadinka qofka soomaaliga wareeriyay ka mid tahay war maxaa ku jaban haddii taliyaasheenni xog la wareysanayo amni lagala sheekaysanayo inay noo xafidnaato ujeeddadu amniga ma aha ujeeddadu waxaa weeye in la fashiliyo amniga oo caloosha amniga bannaanka la keeno si yacni mataqaanaa ka ay hadday og yihiin haddaysa ogeyn ay la shaqeeyaan oo shabaabka ah oo wax uga faa'iido dooda walaalkii cabdixakiim wuxuu yidhi dalkan waa democratic society aadaan ugu faraxsana inuu statementgaas yiri hadday democratic tahay doorashaa ka dhacday waa la codeeyey waxaa loo codeeyey miidiyaha iyo askarteenna inaysa isla joogin intii laga codeeyey oo codkoodii yaraa ayaa haddana albaabadii istaagay waxaa dhacday waxaan taariikhda dhicin barlamaan fadhiyo oo guddoonkoodii fadhiyo oo xildhibaanadii fadhiyaan in guddoonka hortiisa yacni war saxaafadeed lagu qabto yacni foolxumo ka xun oo la waxay lahay ma jirto waxaasoo rafaada ma gara weynin ragga asxaabta ahaa ee xildhibaanada ahaa intaa ma gara weyn waxaa garaadkaas ka qaaday inay ka jeclaysteen in wax fool xun dhacaan inay ayagu arkayeen in libin ay u tahay